بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قيبتي كواد برنامج كان ومقعيسو يهي والدة عس جرمالكا اما سيقابان هدي الله هو والدة جرمالكا كان هيلموت وحو قريسان دقين يهي مدكو كنتن سنة asiga iyo dariskiisaba waxay leeyihiin guryo iyo garaasho yaryar oo ay baabuurta ku xareysan karaan iyo jid yar oo guryahooda hormara bas jidkaasi ma ahan mid ay isticmaali karaan waa jid uu qof ganacsade ah leeyahay mamnuucna ka dhigay inay dad kale isticmaalaan xataa kuwa guryahooda uu hormaraya hadii uu yahay laakiin maxaa wada sidaasi ah loo xirtay waa inaan dib u raacnaa taariikhda jidkan yar jidkan wuxuu ahaa mid aada beer oo nin lahaan jiray jidka iyo beerta waxa iska lahaa hal nin markuu dhintay ilmihiisii dhaxal ahaanta u lahaa dhulka ma aysan rabin inay qaataan jidka amaba yeeshaan maamulkii degmadaasi ka jirayna dhulka dadkii lahaa inay ugu yimaadaan ayuu sanado badan sugayay kadibna 2018 baa jidka iyo meelo kale oo meeshaas ku yaala nin ganacsade ah laga iibiyay ninkii ganacsadaha ahaa meel walba wuxuu sugtay tabeelayaal wuxuu jidkii ku jaray baabuur si aanan loo marin wuxuu xataa geliyay jidkii xaraash internetka ayuu xaraash ahaan jidkii u geliyay dadkii meesha degnaa iibsada markii ay isdhaheen wuxuu u sheegay inuu ka rabo lacag 80,000 ilaa 100,000 oo euro gaaraysa hadda sharci ahaan amaba qaabka rasmiga ah looma ogola jidkaasi yar dadka meeshaasi degan inay maraan amaba xataa cagta saaraan sheekada labaad jiirkii ama dooligii darbiga weyn loo dhisay degmo yar oo Rinsdorf la dhaho oo gobolka NRV ku taalo ayaa waxa ay dhiseen derbi dheer oo alwaax ah oo dhirir ahaan 400 oo mitir ah sababta loo sameeyayna waxay tahay meesha waxa ku nool jiir ama dooliyo nooc dabargo'i raba laakiin imise jiir ayaa ku nool meesha ma taqaanaa maamulka degmadaasi wuxuu sheegay in 5 jiir oo noocaasi ah ay ku arkeen meesha sidaasna ay u dhiseen gidaarkaasi dheer ee 400 oo mitir ah waa 5 jiir ee meesha ku aragnay ay dhaheen kadibna waxaan u dhisnay gidaarkaas aan u dhisnay 400 oo mitir ah dadka deegaankaasi degan aad bay arinkaasi ula yaabsan yihiin wariyaasha arinkan soo duubayeen inta ay meesha joogeen wax jiir ah ma aysan arkin laakiin su'aasha meesha taalo waxay tahay imisa qarash ah ayaa ku baxay dhisidda gidaarkaas ama derbigaas waxaa ku baxay lacag 30,000 oo euro gaaraysa caadi maahan sheekada saddexaad askarigii howlgabka ahaa ee sigsaanta dhuntay loo qabsaday Peter Bruckmüller wuxuu 47 sano ka tirsanaa ciidamada Jarmalka marka maadaama uu ugu dambeyn howlgab noqonayo waxa waajib ku ahayd inuu celiyo wax walba alaab ama dhar ah oo la siiyay inta uu ciidanka ku jiray dharkii dhan ayuu celiyay jacket surwaal kabo iyo wixii la mid ah balse nasiib xumo waxa ka maqnaa sigsaan 11 bishii 1989 kilisi marka uu alaabta celinayayna waxay ahayd 2016 waqtigaasna markii la fiiriyay iyo waqtiga la siiyay 27 sano ayaa u dhaxaysay xilli sigsaantaasi la siiyay macnaha 27 sano ayaa u dhaxaysay markuu 2016 celi isdhahay wuxuu ku qasbanaaday markaasi in uu celiyo amaba uu sheego qaabka ay sigsaantaasi ku dhuntay wuxuu u tagay meeshii uu u sheegi lahaa dhumidda sigsaanta kadibna waxa laga qoray wixii hadal ahaa uu sheegay dhan waxaana lagu yiri sugo boosto ayaa ku soo gaari doonto boostadii markii ay soo gaartayna waxa lagu soo dalacay lacag 1.77 senti ah marka maadaama lacagtaasi ay 5 euro ka yar tahayna waxa loo raaciyay in wax lagu raacanayo amaba loo haysto ee aysan jirin oo sidaa daraadeed la iska daayay cajiib sheekada afraad ninkii dariskiisa luuqa yar ka xirtay luuq marow laazim laami uu imaada soomaheen luuq yar ayuu ka xirtay dariskiisa Christy iyo Lucas waxay u socdaan inay kafee soo cabaan balse wadadii ay ku socon lahaayeen ayaa laga xirtay waxa xirtay nin Maximilian Müller la dhaho taasina waxay dhibaato ku tahay dadka daada ah iyo dadka yaryar ee raba luuqaasi inay ka baxaan oo ay jidka soo gaabsadaan balse ninka wadada xirtay wuxuu sheegay in dadka ay luuqaasi yar wasaqeeyeen oo bac iyo caagado oo ay wax ku cabeen halkaasi ku tuureen kani waa duqa magaaladaasi oo ka codsanaya ninka wadada xirtay inuu furo meesha laakiin sharci ahaan lama ogolo inuu meesha hadii uu xiranayo xataa
derbi 1 سنتيمتر ka badan meesha ka dhisto adiga 1.20 mitir derbi ka badan inuu meesha ka dhiso looma ogolo maadaama ay sidaas tahayne ninka luuqaas yar xirtay wuxuu ku fikirayaa hadda inuu 1.20 سنتيمتر derbiga ka dhigo balse silig iyo biro adag uu kor ka suro si aanan loo fuulin xataa derbiga ka sheekay intaas ayaan ku ekeenaynaa qaybteeni koowaad ee waalida cas ee Jarmalka ka jirto qaybteeda xigta inta aan ku kulmayno khayr badan ayaan idin rajaynaynaa insha Allah haddii aad muuqaalka ka heshay la wadaag asxaabtaada ciao